bismillaahi raxmaani raxiim qayaarta qiimiga iyo qadarinta inaga mudano waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena kulan wareedka warbaahinta Magan oo usbuuc kasta aad kala socotaan warbaahinta Magan. warka maaxda muusiga iyo tamashleen madasha bulshadu isku sheegeen mar walbana maankoodu Magan weeye garo. Radio Magan waa mid mahadhadeedu muddo soo jirtay malaayiinta taqiinayna. Magan waxay ku sheegeen inay tahay media samaanta ka hadlo mujtamaca maweyladeedu markasta u heleen Radio Magan. Magan Radio Magan idaacadda Magan. qodobada aan maanta ku soo qaado doonana haddii rabbil khaalif noqdo waxaa qayb ka noqonaya taliska ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn ka fuliyeen meel ku dhow deegaanka Jamaama ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay xal ka gaartay khilaafka u dhaxeeya maamulada Puntland iyo waliba Somaliland. xubno ka tirsan aqalka sare oo soo kala dhaxgashay khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Waxaa sidoo kalena akhyaari qaybka barnaamijka maamuliyuun oo kamid ah maamooyinka Soomaaliyeed oo ka hadashay xaaladda Soomaaliya. waliba aaladda Facebook oo markaasi sharciyo adag ka soo saartay isticmaalkeeda. labadaas ayaan barnaamijka ku eegi doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo. barnaamijka waxaan la socodsiin doonaa anigoo Cumar Cabdullaahi Macalin hase yeeshee heesta daafurka barnaamijka. waxyaa kale oo dhammiba haddii walwal aysan qabin wadnuhu kaama maarmi karo isagu wehel waa ogyahaye waxyaa kale oo dhammiba haddii walwal aysan qabin wadnuhu kaama maarmi karo isagu wehel waa ogyahaye waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa waxweyn bay ii tahe wacalka maxaan waaye wacantii aan jeclaaye wacalka maxaan waaye wacantii aan jeclaaye waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa waxweyn bay ii tahe wacalka maxaan waaye wacantii aan jeclaaye wacalka maxaan waaye wacantii aan jeclaaye
warkaaga inaan helaa wax weyn bay ii tahay wacalka maxaan waayey wacantii aan jeclaayey wacalka maxaan waayey wacantii aan jeclaayey waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa waraaqaad soo dirtiyo warkaaga inaan helaa wax weyn bay ii tahay wacalka maxaan waayey wacantii aan jeclaayey wacalka maxaan waayey wacantii aan jeclaayey waatahay aan intaas kaga imaano heestaas aadku macaaneed waxaana ahayd daafurka barnaamijka markaana waxaan toos u gudagalaynaa barnaamijkeena anagoo markaas eegi doono amaba anba qaadi doono qodobada barnaamijka aynu ku bilownay taliska ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn ka fuliyeen meel ku dhow deegaanka Jamaama ee gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay Mareykanku ay maalin ka hor duqeyn ka fulisay meel ku dhow deegaanka Jamaama ee gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya halkaas oo ay gacanta ku hayeen xarakada Al-Shabaab war qoraal ah oo ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay inuu Mareykanku oo kaashanaya ciidamada dawladda Soomaaliya ay wadaan dadaalo lagu weeqayo awoodda xarakada Al-Shabaab qoraalka ayaa lagu yiri 2 sanadood ka hor Al-Shabaab ayaa haysatay xornimo dhinacyada dhaqdhaqaaqa ah taasoo ka caawinaysa inay barakiciyaan oo ay argagixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dooxaha wabiga Jubba iyo meelaha ku dhow Kismaayo laakiinse maanta meelahaasi oo dhan waxaa laga sameeyay fariisimo ciidan oo u diiday Al-Shabaab inay si xor ah weeraro ugu soo abaabulaan ku-xigeenka madaxa howlgallada Africom William West ayaa sheegay in howlgallada iyo duqeynta Mareykanku lagu xaqiijinayo badqabta fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay u horseedayso in meelaha laga qabto Al-Shabaab ay ciidamadu ku sii sugnaadaan isla markaana ay suuragelinayso in ciidamada Soomaaliya inay weeraro xureyn ah ku qaadaan dhulka ay haysato xarakada Al-Shabaab Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn ay Jubbada Dhexe ka fuliyeen maalin ka hor oo ay ku dileen 2 kamid ah dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab iyadoona dadka rayida markaas aysan waxba ku gaarsiinin qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay sii wadayaan inay Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ay kala shaqeyso sidii mas'uuliyadda amni iyo mudada fog lagu wareejin lahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah Imaaraadka oo la sheegay inay xal ka gaartay khilaafka u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa magaalada ka soo dirtay wariyaheena Turbaco Boqol Baarweyn dowladda istaga Imaaraadka Carabta oo la soo warinaya in xalay ka gaartay in muranka maamul goboleedyada Puntland iyo Somaliland kala dhaxeeya xagga xuduudaha arintan oo soo shaac-baxday kadib kulan dhex maray labada hogaamiye ee Biixi iyo Dani kuwa oo la sheegay inay isku afgarteen xabad joojin laga sameeyo dhinacyada xuduudaha labada maamul isla markaana ay isu afgarteen in labada shacbi ee ka soo kala jeeda in deegaanada Somaliland iyo Puntland ee walaalaha ah la xasiliyo nabadgelyadooda lagana fogaado wax walba oo labada dawlad goboleed in caqabad ku noqon kara wararka kale oo soo baxaya ayaa iyana ku waramay in hogaamiye Saciid Dani uu ka tanaasulay deegaanada in Somaliland ay sheeganayaan ee Sool iyo Sanaag hase ahaatee wararkaasi ayaan wali la xaqiijin kulankan ayaa ku soo beegmaya in dowladda Imaaraadka oo heshiisyo cusub oo hor leh la kala saxiixanayso in labada hogaamiye goboleed waxayna tani ifafaaliyo xasilooni nabadeed u keeni doontaa shacabka dega in labada maamul goboleed ee Somaliland iyo Puntland Turbaco Boqol Baarweyn Radio Magan Boosaaso waatay aad mahadsan tahay Turbacay
xubno ka tirsan aqalka sare ayaa soo kala dhexgalay khilaafka u dhexeeya Puntland iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo farageliyay khilaafka xilligan ka dhexeeya wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland kadib markii Puntland ay diiday inay sanadkan ka qayb gasho imtixaanaadka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. xubno ka socda senatarada aqalka sare ayaa kulan gaar ah waxay la qaateen wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyagoona kala hadlay imtixaanaadka dooliga ah ee dugsiga sare iyo sidii loo midayn lahaa sidoo kalena xal looga gaari lahaa khilaafka hadda u dhexeeya Puntland iyo wasaaradda waxbarashada. senataro deegaan doorashadoodu tahay Puntland oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay inay u baxayeen Puntland si ay iskula meel dhigaan arrimaha imtixaanaadka midaysan. wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa dhankiisa wuxuu xuseen in Puntland ay waayo aragnimo u leedahay arrimaha waxbarashada sidoo kalena uu rajeynayo in xubnaha aqalka sare ay ka keeni doonaan isku soo dhawaasho waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland. khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa soo ifbaxay toddobaadkii hore kadib markii wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in Puntland sanadkan ay diiday inay ka qayb gasho imtixaanaadka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. maliyuun oo kamid ah maamooyinka Soomaaliyeed ayaa ka hadashay xaaladda Soomaaliya. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa markaasi noo eegaysa oo noo qaada dhigaysa wariyaheena Faiza Maxamed Xasan. maamo maliyuun oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool gurbaha ah ee bartanka YouTube-ka kaga hadashay xaaladda Muqdisho ka taagan iyadoona afkaarteedu ku dhalishay in shacabka iyo dawladduba aysan hagaagsaneen isla markaana waxay xaqiijisay in shacabka iyo dawladduba ay ka dhex jirto isfahan waa iyo waali. maamada oo dhinacyo badan ka hadashay xaaladda uu hadda wadanka ku marayo ayaa afkaarteeda ku muujisay dawladana ku waanisay in dhalinyarada loo sameeyo goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah kadibna kii waxbarto shaqo uu qalanta oo loo dhiibo. maamada ayaa hadalkeeda ku dartay dhalinyarada hadda u hanqaltaagaysa tahriibka ay dhib weyn ku tahay maadaama ay tiri in qof dhalinyarada ee qurbaha ku sugan iyo kan dalkiisa jooga aysan isku mid ahayn, iyadoo ammaan balaadhan hubisay dhalinyarada bajaajka raacata waxayna askarta ciidanka kugu gubaabisay in loo tuuro dadka sharciga la marsiiyo askarta qaar ee dilalka geysta. maliyuun cali oo inta badan lagu yaqaano u hiilinta iyo xaqdirirka haweenka Soomaaliyeed isla markaana ah haweeneyda kaliya ee calanka dumarka kor u qaada iyadoo markaa ku xaqiijisa in dumarku aysan dambi gelin ayaa lagu amaani karaa walow ay haweeneydan dadka qaar ee afkaarteeda kasoo horjeedaan ay ku sheegeen ruux xanuunsan. ugu dambeyntiina shirkadda Facebook ayaa shaacisay inay markaasi soo saarayso sharciyo adag oo ku aadan isticmaalka aaladeeda kadib markii ay aragtay shirkadaasi dad si qaldan u isticmaala aaladeeda. isbuucii hore ayaa la sheegay ama markaasi ay soo saartay warbixin kaga aadan aalada Facebook. waa shirkadda Facebook oo iskale aalada Facebook ayaa sheegtay inay markaasi ay jiraan dad si qaldan u isticmaala aaladaasi iyagoona sameeyay aalad kale oo koobi ah oo markaasi ay ka sameeyeen Facebook. dadkan ka hadlay arintaas oo iskale shirkadan ayaa sheegay in markaasi dadka isticmaalaya aalada Facebook amaba samaysan doona aalad aan iraahday password iyo username cusub inay markaasi ay u sameeyaan doonaan ama ay weydiin doonaan su'aalooyin dhowr ah ku aadan kadib marka uu markaasi qofku samaysanayo aaladaasi. waxaa jirtay dad isticmaala waxyaabo fara badan oo certification isla markaasina aaladu sheegtay inaysan u dulqaadan doonin dadka sida qaldan u adeegsada aaladooda. غير انت ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii xiisaha lahay oo ku dhageysateen isla markaasina aad ku daawateen qodobo dhowr ah. barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo Cumar Cabdullaahi Macalina magan aad ka dhageysanaysaan oo hadda jeerba markaasi meel kasto aad joogtaan diyaar idinku ah inay wixii markaasi aad doonaysaan ay idin soo gudbiso. intan kan iyo kiisa kale ku kulmi doono waxaan leeyahay sida iyo nabad galyo.